mitir toddoba oo lacagta ku baxday ay dhantay 25 milyan oo shilinka Soomaaliga iyadoo oo aynu ognahay in dhinaca isgaarsiintu ay qayb weyn ka qaadato fududeynta hawlaha markaasi gaadiidku ay si fiican ay isaga gooshaan hadii ay aan lahayd magaalooyinka dhexdooda iyo hadii ay aan lahaydba magaalooyinka marka ay kala safrayaan ay kala socdaalayaan tani intii kacaanku ka curtay dalka 22 Oktoobar sanadkii 1969 waxyaabaha lagu dadaalay waxa kamid ah sidii ay shaqaaluhu ay u heli lahaayeen guryo si ay uga kaaftoomaan guryaha kale ee kirada waxaana taasi ay tahay mid lagu daryeelayo danaha shaqada iyo shaqaalaha madaxweynaha Jaalasiyaad madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda kale la socotayba waxa soo tageen xamar bila halkaas oo xariga uu ka jaray Jaalasiyaad madaxweynaha Soomaaliya 60 guri oo lagu kordhiyay xaafadda xamar bila oo sanad waliba lagu kordhiyo iyadoo haatan guryo fara badan laga hirgeliyay xaafadaasi sanadihii ugu dambeeyay iyadoo oo munaasabad kasta oo la dabaaldegayo sanad guura ka soo wareegtay curashada kacaanka 22 Oktoobar lagu beego furitaanka guryaha lagu kordhiyay ee halkaasi xaafadda xamar bila معروف ويان رجعيده waxay u bixisay ifi aakhiro kacaankuna wuxuu baxshay xabar bila inay xabar bila tahay wardhafoor buu ku yaala ciidanka biliiska waaxdiisa ama laantiisa dhismada ayaa dhistay cadadka la sheegayana waa iyaga waxaan loo jeeday shaqaalaha danyarta ee Soomaaliyeed nooc qolo kasta ahaadeen inay ka helaan mar hadayeen aynan ijaaran kareynin oo lacagtooda ay gaari kareynin suuqa aad qaali u noqday inay ka helaan guryo ay ku noolaadaan wax walbana ay u fududeyso madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre meel kasta oo tagaba waxa si diiran ugu soo dhaweynayay intii mashaariicdaasi saaka ku furayay magaalada tan Muqdisho mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada mashaariicdaasi iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga dawladda ururada bulshada ubaxa kacaanka iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay ka koobatay magaalada Muqdisho iyagoo dadweynuhu halkaas ka muujinayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo soo dhaweyn ay muujinayeen madaxweynaha Jaale Siyaad madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre oo si gaar ah uga hadlayay mashaariicda la xiriirta horumarinta dhinaca waxbarashada oo maanta xariga laga jaray waxa uu sheegay in macallimiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay kaalin mug leh ay ka qaataan baahinta aqoonta maadaama aqoontu ay tahay furaha horumarka iyo ka gudubka dib u dhaca markuu ka hadlayay munaasabada furitaanka warshada rinjiga iyo barafuunka Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu ugu baaqay maalqabeennada Soomaaliyeed in ay hantidooda ay galiyaan waxyaabaha kaalinta ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta wax soo saarka gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Siyaad waxa uu kaloo aad uga mahad celiyay ururada caalamiga ah dawladaha iyo hay'adaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay hirgelinta mashaariicdaasi gaar ahaan dalalka boqortooyada Sacuudi Arabiya jamhuuriyadda dadka ee China jamhuuriyadda federaaliga Jarmalka iyo suuqa dhaqaalaha ee reer Yurub iyadoo hadaba guud ahaanba dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya sanad kastaba maanta oo kale laga furo mashaariic kala duwan ayaa waxa kale oo jirta in madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale sareeyaha guud Maxamed Ali Samatar oo isaguna uu ka furay mashaariic fara badan magaalada tan Muqdisho Jaale Samatar mashaariicda uu ka furay magaalada Muqdisho waxay ka koobatay 8 mashruuc oo ay ku baxday guud ahaan lacag gaaraysa 165 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waxa ku wariyay Jaale Samatar intii mashaariicdaasi uu furayay wasiiro iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya meelaha uu furay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale sareeyaha guud Maxamed Ali Samatar waxa kamid ah xarun cusub oo loo dhisay wakaalada hawlaha maraakiibta oo lacagta ku baxday ay dhantahay 25 milyan oo shilinka Soomaaliga ah xarun cusub oo loo dhisay bankiga dhiiga oo lacagta ku baxday ay dhantahay 18 milyan oo shilinka Soomaaliga ah macadka diblomaasiyadda ay ku baxday 23 milyan oo shilinka Soomaaliga ah xarun cusub oo loo dhisay ciidanka ilaalinta deegaanka ee Xamar iyo xarun cusub oo loo dhisay waaxda dadrigida ee dawladda hoose magaalada Muqdisho oo ay ku baxday guud ahaan labadaasi mashruuc ee loo hirgeliyay dawladda hoose ee magaalada Muqdisho 25 milyan oo shilinka Soomaaliga ah
Charles Samatar mashaariicda kale oo ka furay magaalada Muqdisho saaka waxa kamid ah xarun cusub oo loo dhisay wakaalada Asfiima ee soo saarida daawooyinka oo lacagta ku baxday ay dhantay 9,147,907 shilinka Soomaaliga ah waxa kale oo Charles Samatar saaka xadhiga uu ka gooyay si rasmi ah magaalada tan Muqdisho qaybta labaad ee mashruuca ballaarinta korontada ee Jazeera waxa kale oo xadhiga ka jaray guryo loo dhisay madaxda iyo shaqaalaha wakaalada shirkadda Somali Airlines oo lacagta ku baxday ay dhantahay 51 milyan oo shilinka Soomaaliga ah madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Charles Guud Maxamed Cali Samatar intii isaga iyo madaxda kale ee la socotay mashaariicdaasi ay marayeen ee xadhiga uu ka jaray ee laga hirgeliyay mashaariicdaasina magaalada madaxda Muqdisho waxa si diiran ugu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta howlwadeenada ururada bulshada waxa kacaanka Oktoobar iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadahaasi uu ka furayay mashaariicdaasi sida oo kale madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Charles Xuseen Kulmiye Afrax ayaa saaka isaguna xadhiga waxa uu ka jaray dhowr mashruuc oo laga hirgeliyay caasimada dalka ee Muqdisho xaafadaheeda iyo degmooyinkeeda kala duwan lacagta ku baxday mashaariicda uu saaka Kulmiye uu ka jaray xadhiga ee magaalada Muqdisho waxay dhantahay 73 milyan 9,205,230 shilinka Soomaaliga ah iyadoo halkaasi ay ku weheliyeen madaxweyne ku-xigeenka labaad Charles Xuseen Kulmiye Afrax intii uu mashaariicdaasi u furayay gudoomiyaha hogaamaha iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga iyo dawladda mashaariicda uu saaka xadhiga ka jaray Charles Xuseen Kulmiye Afrax madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxa kamid ah mashruuca ballaarinta wadada isku xirta Baarfiyaad iyo kontaroolka Balcad bukaan socod eegtooyin loo kala hirgeliyay oo laga kala dhisay degmooyinka Kaaraan iyo Cabdilcasiis waxa kale oo Charles Xuseen Kulmiye Afrax uu xadhiga ka jaray saaka xarumaha xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed loo kala dhisay xaafadaha Heliwaa iyo Beesha u Xaraacade ee magaalada tan Muqdisho dugsi hoose dhexe oo laga hirgeliyay Beesha wax Xaraacade ee magaalada Muqdisho waxa kale oo Charles Kulmiye uu xadhiga ka jaray saaka laanta bankiga ganacsiga iyo kaydka oo laantaasi ay cusub tahay oo ku taala degmada Shibis ee magaalada Muqdisho Charles Xuseen Kulmiye Afrax madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxa kale oo xadhiga ka jaray 12 kinaal oo telefoon iyo telex ah kuwa dibadda loo isticmaalo ah oo ay leedahay wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta oo saaka ay dhismaheeda la soo gabagabeeyay kadibna xadhiga uu ka jaray Charles Xuseen Kulmiye Afrax